markii ay baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida kala laabteen xukuumadii uu 3 sano iyo 6 bilood soo laylinayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan helnay shanta xubnood ee ugu saameynta badan isla markaana la rajeynayo in mid kamid uu noqdo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dalka gaarsiisa doorasho loo dhayahay sida uu gudoonka baarlamaanka federaalka u gudbiyay ama ka codsaday madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama hadlayno caqabadaha iyo wax hor yaala ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono laakiin waxaan eegi doonaa liiska rasmiga ee la xaqiijiyay inuu yahay kan hor yaala madaxweyne Farmaajo ilaa hadda uu kala dooranayo kana soo dhex saarayo shakhsiga ay wada shaqeyn doonaan bilaha nagu soo wajahan ka dhiman muddada doorashooyinka la qabanayo sidaas xubnaha saameyn ay ugu leeyihiin mucaaradka iyo dawlad goboleedyada oo ah labada hadda madaxtooyada soo eegaya ee doonaya inay iska dhex arkaan xilkan qofka koobaad waa Nuur Diiriye Xirsi Fuursade oo ku dhashay magaalada Beledweyne waxa uu ku jiraa da'da 68 sano jir waagaasimaha madaxtooyada ee waqtigan ka horna la taliye madaxweyne Farmaajo ayuu ahaa waxa uu xubin ka yahay dadka aad ugu dhow madaxweynaha waxa uu ka soo jeedaa Galmudug laakiin sanado badan ayuu ku maqnaa dalka dibadiisa 4 dawladood oo caalami ah ayuu soo shaqeeyay oo qaybaha istiraatiijiyadda ka taageersanaa ama u qaabilsanaa waxa lagu qiyaasaa inuu yahay mid ka mid ah xubnaha istiraatiijiyadda u dejiya aqalka madaxtooyada laakiin ugu dambeyn 15 Maarch 2019 ayuu talada halka laga maamulo dalka kala wareegay Dr. Aamina Saciid Cali oo ahayd kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada fursada waxa uu taageero ka helayaa Galmudug laakiin caqabadaha haysta ee ugu badan waa dhanka mucaaradka iyo dawlad goboleedyada oo u arkan in aan wax badan badhaami doonin Xasan Cali Khayre ayna tahay oo kaliya dhadhaarada oo la kala bedelay taasina waa caqabada ugu weyn ee hor istaagaysa magacaabidiisa qof kale waa Cabdiraxmaan Maxamed Odawa waxa uu ku dhashay Muqdisho waxa uu ku jiraa da'da 46 waxa uu ka soo jeedaa Galmudug horay ayuu u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadii Xasan Sheekh oo saaxiib dhow la ahaa haddana waa mudane ka tirsan baarlamaanka waxa uu isku soo taagay musharaxnimada Galmudug laakiin hoolkaba ma uusan galin markii xukuumadii galbatay ee Khayre uu ku eedeeyay fargelin doorasho Odawa ka soo aqoon-yahanimadiisa hadda waxa uu taageero weyn ka dhex leeyahay mucaaradka madasha xisbiyada oo ay ku midaysan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed iyo xisbiyo kale waxa uu ka hayaa xogayaha madashan oo uu kala wareegay saaxiibkiis Axmed Macalin Fiqi oo Galmudug siyaasadda heer federaal uga diga rogtay Odawa ayaa ka soo dhex muuqday codayntii kalsooni ka noqoshada Khayre oo ay saaxiib ahaayeen ka hor maalmihii uusan Khayre si kaliisa uga diga rogan tiimkii doorashada ay Xasan Sheekh Maxamuud sidaas oo kale ayuu taageero ka heli karaa dawlad goboleedyada qaarkood gaar ahaan Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana helitaankiisu ay ku xiran tahay saaxiibtinimo siyaasadeed oo ku wajahan xaaladda waqtigan laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku sifaynaya in imaanshihiisa xafiisku aysan u wanaagsanayn siyaasadda fiila Soomaaliya ee waqtigan dhinaca kalena waxay u abuuri kartaa jawi ay ku doonayso inay hesho muddo dheeraysi ku wajahan muddaxileedka xafiiska hay'adaha dawladda qofka saddexaad waa Dr. Cabdiraxmaan Cusmaan Faarax nin wax badan laga yaqaan maaha waxa uu ka soo jeedaa Muqdisho waana mid ka mid ah xubnaha la rumaysan yahay inuu hadda leeyahay saameynta xoogan Dr. Cusmaan waxa uu ka caawin karaa dawladda inuu ka dajiyo culeysyada uga yimaada gudaha Muqdisho gaar ahaan beelaha Mudlood laakiin caqabadaha haysta waxa ka mid ah inuu saameyn ku dhex lahayn xubnaha mucaaradka oo aad uga soo horjeeda waqtigan tallaabooyinka ay damacsan tahay madaxtooyada Soomaaliya qofka afraad waa Axmed Cabdi Kaariye oo loo garan og yahay qoorqoor hadda waa madaxweynaha Galmudug waxa uu horay uga tirsanaa xukuumadii Khayre ee codka kalsoonida weyday horay mucaaradka uga walaacsanaa qabashadiisa xilka Galmudug waxa soo ifbaxday inuu yahay nin isku wari kara mucaarad iyo muxaafid 5 bilood gudahood ayuu isu keenay dhammaan darafyada ishaye ee Galmudug caqabada ay adkayd inuu ka gudbana si fudud ayuu uga tilaabsaday markii golaha wasiirada ay ka soo dhex muuqdeen xubnaha aadka u mucaarsanaa doorashadiisa dadka qaar ayaa ugu yeeray hogaamiye isku wadi kara bulsho karaagti duwan dadka yaqaana waxay ku sifeeyaan nin bulshaya kaftan badan isla markaana si dhow ula socda una darsa marxaladaha geesihiisa ka taagan waxaan uu ku guuleystay 5 bilood gudahood isku keenida dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka oo khilaaf xoogan u dhaxeeyay masalana inuu qoorqoor ka tanaasulo Galmudug oo hadda isku dubariday dibna u unkay una guuro siyaasadda federaalka oo aan deganayn haddana damaca ku wajahan muddo kororsi uu la yimaado ayaa ka dhigan inuu xilkaas aadi karo masabadna rajada laga qabi karo qabashada xilkan ee Axmed Cabdi Kaariye
iyadoo wararku ay sheegayaan inuu u safrayo saacadaha dhow magaalada muqdisho. habeenna ka hor intii uusan dhammaanin shirkii magaalada dhuusamareeb ayay ololo xoogan bilaabeen qaar ka mid a saaxiibadiisa siyaasadda waa qoorqoore oo ay isku beel ka soo jeedaan. waxay wadeen loolankaa in qof ka soo jeeda galmudug uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka kaasoo dalka gaarsiiya doorasho qof iyo coda. qofka shanaad waa cali maxamed geedi, hore ayuu jagadan u soo qabtay, waa ninka labaad ee xagga muddada xilhaynta xafiiska ku xigay Khayre oo hayay 3 sano iyo 6 bilood. cali geedi waxa hore ra-iisul wasaare ugu magacaabay Cabdullaahi Yuusuf Axmed 2004 laakiin bishii Julaay 2007 khilaaf yimid awgeed ayuu isku casilay ugu dambeyn 2007. si la mid ah khilaafka Khayre inkastoo uusan maalin iyo saacado toona ku bixin dadaal dheer kadib ayuu tanaasulay sida uu sheegay. geedi waxa uu ka soo jeedaa Muqdisho, waa siyaasi hadal cad kana rumeeya waxa uu aaminsan yahay, laakiin sanadihii u dambeeyay waxa uu taageerayay madaxtooyada Soomaaliya. dadka dhalilaa waxay ku sifeeyaan inuusan hadda ka gadmi karin mucaaradka oo ay aragtida ka sokow in ka badan 10 sano lahaayeen xarag jig siyaasadeed oo xoog badan, gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo labadaba ay isku beel ka soo jeedaan aysan aragti ahaan si fudud ku midoobi karin. inuu cali geedi yimaado xafiiska ra-iisul wasaarenimada dad badan ayaa rumaysan inuu wax ka qaban karo xaaladda dalka oo uu ku dhac leeyahay, u bareeri karo meel marin karana qorshaha fiila Soomaaliya oo uu taageero kaga heli karo dowlad goboleedyada ugu badan iyo sidoo kale beesha madulood ee Muqdisho. laakiin caqabadda haysata waxay noqon kartaa dhinacyo ay ka mid yihiin mucaaradka madasha oo la rumaysan yahay in tagida Khayre ay door weyn ku lahaayeen, gaar ahaanna ama ugu yaraana xubnaha baarlamaanka ee iyaga taageersan ay u codeeyeen rididiisa. saaxiibo badan oo cali geedi ku leeyahay siyaasadda gudaha ayaa ku jira dadaal xoog loo ay ku doonayaan in loogu magacaabo xilkan, waxaana xubnaha qaarkood ay sheegayaan in rajadaas ay u dhowdahay dhankooda, waxaana xubnahaasi ka mid ah qaar ka soo jeeda beesha madaxweynaha. sidaas oo kale waxaa jira siyaasiyiin ay ka mid yihiin Dr. Cabdinaasir Cabdulla Jaamac oo hore ugu tartamay xilka madaxweyne ee Soomaaliya, haysta dhalashada Mareykanka kana soo jeeda koonfurta gobolka Mudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna ka soo jeeda Galmudug, injineer Cabdullaahi Xasan oo ka soo jeeda Muqdisho, Axmed Maxamuud Axmed Washington waa maareeyaha waqtigan ee dekedda Muqdisho oo isna ka soo jeeda isla gobolka Banaadir. waa dadka la hadal hayo iyana inay qayb ka noqon karaan magacaabidda madaxweyne Farmaajo ee jagada ra-iisul wasaaraha oo hal qof oo kaliya loo baahan yahay, balse macluumaadka la helayo ayaa sheegaya inay caqabad ku yihiin doonistooda waqtigan siyaasadda xilligan taagan oo ah mid ay madaxtooyadu doonayso in xaaladda uu ra-iisul wasaaraha cusub noqdo mid jidbu furaa. madaxweyne Farmaajo ayaa laga sugayaa 6 ilaa 7 maalmood ee lagu soo wajahan magacaabidda ra-iisul wasaare dalka ka gudbiya marxaladda kala guurka sida uu baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shalay codsaday. ila wareedyo aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqaya in madaxweynuhu maalmo ka hor ra-iisul wasaarihiisu u diyaarsanaa isla markaana la filayo in 31 bishan ugu dambeyn uu ku dhawaaqo qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dhamaystirayana muddo xileedka golaha xukuumadda iyo dawladda oo dhan. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada. haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.